السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض داود يا لدي لهانتي بكون سو دوادا مركلة إيه برنامج كأني كلن كعياريهن كأو تضباط كني مرتين وجوي هاي دافع عدم بكوحدة وسارد حنانة حولها أو حول وعياريهن كم على صوران كم على كسر ترو كيبل تي في. أدبن وقول على ترو كيبل تي في. إن أدبن كجمع علنا كم على وقت قالجا مرك هراء نجي داود ياشا وكم كم على صوران وياها جي حرفتك بدعكت. وياها حرفتك بدعكت heer waxaan kasoo bilaabay xaafadnimo oo sida badan abay ciyaaryahanada kasoo bilaaban sharabaad ayaan kasoo bilaabay heerkii koobaad aan kasoo ciyaaray anuu koox la oran jiray dhambaal waxaa kusoo xigtay lama filaan haddana waxaa kusoo xigtay danab mar ilaa aan kasoo gaadhay heer degmo iyo heer b iyo heer e waynu soo noqon doonaa kooxaagii serie b da waxaad kula guuleysatay kooxdii ciidanka ilaalada xeebaha waxaad waliba kamid ahayd xidigii sida weyn uga dhex muuqday tartankaasi oo ay qabatay shirkadda True Cable TV tartankaasi bal waayihii gaarka ahaa ee jimcaale aad ku xasuusan karto maxay ahayd tartankaas walahi tartan wuxuu ahaa aad u qiimo badan tartankii ugu qaalisanaa weeyay aan hadda soo ciyaaray aan kusoo guuleystay isagii oo zero b Allahumma salli ala Muhammad wallahi wuxuu ahaa tartan aad u qaaliya True Cable aad baan uga mahadcelinayaa qabashada inoo qabatay qaabka baahinta qaabka sawirada aad iminka waliba loo sii daawado oo lagu soo celiyo dadka xagga aad nooga barteen oo maalmo koobka bir hore la qabtay iminka hadana dib replay looga sii daawado isla sanadkaasi waxaad nasiib u yeelatay inaad ka soo dhex muuqato shaxdii tababare Maxamed Ibraahin oo leelinayay kooxdii degmada Axmed Dhagax bal iyaga anagee daawadayaasha shaxdaasi sidaad qayb uga noqotay kulamadii aad ciyaarteen iyo guushii aad u soo hoysay degmadii Axmed Dhagax oo ku guuleysatay inay noqoto horyaalka degmooyinka caasimadda Hargeysa wallahi horta macallin walba iyo qof walba oo mar uu coachii isaga tookhale inkastoo ahayn ciyaartooy waliba aad u xulo intii degmada ugu fiicneed iyo intii laga yimi bay ahaayeen ciyaartooy aad u fiican horta halkan waxaan uga hambaleynayaa macallinkii Maxamed Ibraahin يا معلم كحيانك يوسف محمد يوسف أيان أدو همبلينا ونلاقي واد مع سنتين وحكالله همبلينا عيارتوي ده كسو جوليسيني أو ده هل كان ده كسو أنا كسو كوب كرينو أدو بدنا يا عيارتوي ده أحمد لقى حوران أنا أدو سلام يا أنت بهذا سبورتس كوتشر توران والله كوب كاسي كوب وحوا آدم وشراي تاريخ ده on kasoo mid noqonay aniga iyo ciyaartooy badan sida waxaan halkan uga xusayaa kabtankaygii Shaafici oo noo ahaa golada haddana inuu koox nahay ha aad u habaliyo kooxdii dhammaan gabigoodiiba waa tahay waxaynu eegi doonaa isla markii uu tartankaasi soo dhamaaday waxaad heshiis aad kugula wareegtay kooxda heerka koobaad ee duulistii hawada oo ahayd in markii koobaad aad ka soo dhex muuqato shaxda horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa bal u wareegitaankaagii anagii daawadayaashana la wadaag wareegitaankii wallahi muuhayn caadi uma wareegin oo kooxda ilaalada xeebaha markaa ka tirsanaa kooxda ilaalada xeebaha amaah bay igu bixisay 6 bilooda 6 bilood aan dhamaystay kooxdii xidiga cirka oo ku ayaan saa ugu wareegay marka 6 bilood dhamaystay kooxdii markaa saa ugu wareegay adigu kooxdii markaan la joogay sanad ayaa haddana waan ka wareegay waxaan u wareegay kooxda ilaalada kooxda xanaanada xoolaha waa xool aan hadda ku joogo waa tahay kooxdaada waxool waxay ka mid tahay kooxaha ku hirdamaya horyaalka heerka koobaad waxaanay raadinaysaa fursadii aanay kaga mid noqonaynin kooxaha laabanaya horyaalka heerka labaad rajaynta leeg baad jimcaale ka qabtaa in kooxdaadu ay kasii mid ahaan doonto kooxaha horyaalka heerka koobaad wallahi rajo aad weyn baan ka qabaa waayo waxaan haysanaa ciyaartooy aad u fiican macallin aad u fiican ayaan haysanaa oo aan waliba iyo taageerayaal aan halkan ka salaamayo ayaan haysanaa wallahi waxaan ka qabaa rajo aad weyn inaanay taasi dhacayn oon kasii mid ahaan doono heerka koobaad waa tahay jimcaale taageerayaasha waxool waxaa la yidhahdaa horyaalka iyo FA-ga waxaa ciyaara laba waxool baa ciyaara waxool waa waxoosha wacdaraha ka dhigaysa FA Cup-ka waxool waa waxoosha doonaysa inay ka badbaado horyaalka heerka koobaad sidee taageerayaasha ugu qancinaysaan inaad rajada idinka filayaan oo ah sidaan aad u ciyaartaan FA-ga
inaad horyaalkana u ciyaaraysaan kulamada hadhay horta waa laba koob oo kala duwan. Horta koobka FA-ga waxaa badanaa ay ciyaartoyda kooxaha nagala ciyaaraya aan hadda isku soo wada dhacnimo kooxo waxay ahaayeen heerka koowaad higsinaya, kaalmaha hore higsinaya koobka qaar higsinayaan ayay ahaayeen. Heerka koowaadna waxaan adigu badanaa u wada ciyaarnay kooxo sideedoo kale ah oo ka cararaya B oo xaaladdu ka adkaanaysa. Waxaa laga yaabaa in kooxahaas aan wada ciyaarnay FA Cup-ka oo sida qaran oo kale dowladda hoose oo kale waxay ahaayeen kooxo xagga sare ku tartamaya, qaran oo kale waxay ku tartamaysaa koox championka, dowladda hoose waxay ku tartamaysaa horyaalka iyo championkiiba. Marka waxaa laga yaabaa inaan halkaa culays naga fuulin, laakiin mar hakaad la ciyaarayso koox B ka baxaysa iyagoo sidaadoo kale u baahan way kugu adkaanaysaa, aad bay kugu adkaanaysaa. waa tahay dhowaan kooxda waxaa la wareegay tababare maxamed cabdi xasan koofinde oo horena ciyaartoy taariikh weyn kubadda cagta ka sameeyey ahaa. dad badani waxay yidhaahdaan waxool inay rajo fiican yeelato oo kalsooni ay dhisanto oo ciyaartooyadii iyo isla jaan qaadaan taageerayaashii waxaa falsafada ka dambeysa waa maxamed cabdi xasan koofinde. idinku aduu fikirkaa ma qabtaa xidhiidh nooceeyana se kaala dhexeeya tababarahaaga? Horta falsafadaas waa falsafad saxan waayo waa macallin weyn, ciyaartoy weynna soo ahaa oo kubadda cagta xushmad weyn ku leh. oo anigu horta wallaahi markii lagu yiri waxa weeye coachka kooxda waa xanaanada xoolaha la ilaalin doono waxa weeye maxamed cabdi xasan, aad baan ugu farxay. waana macallin aad u qiimo badan, halkana waa ka salaamaya 100%. kooxda wallaahi waad arkaysaa adigu inuu wax badan ka bedelay oo dee falsafadii ciyaarta iyo tii akhlaaqda iyo tii taageeranimo ay aad u bedelantay oo arkayso imika ay kor soo kac marayso aan taagan ilaa heer final. waa tahay waxaynu u gudageli doonaa shakhsiyadaada gaarka ah iyo xiisaha aad kubadda cagta u qabto asxaabtaada gaarka ah ayaynu u gudageli doonaa barnaamijkan kulanka laacibku si daawadayaashu ay uga barteen. barnaamij ciyaaryahan walba waxa uu soo gudbiyaa xogtiisa gaarka ah iyagoo daawadayaashu marka ay ku kala fikir duwanaadaan go'aanadan uu qaatay ma sax ba ma qaladba iyagana aynu u deyn doonaa. Jimcaale Sooraan waa kuma saaxiibkaaga kubadda cagta? Saaxiibkayga kubadda cagta horta kolba waxay ku xiran tahay kooxda aad joogto. mar haddii imika hadda kooxdan joogo xanaanada xoolaha saaxiibkayga waa Muuse Koos. Muuse waa tahay waxaad ka mid tahay ciyaaryahanada khadka dhexe ka ciyaara weliba daafaca dambe ama say dadka booska u yaqaanaan number 6-ka. ciyaaryahano badan baad halkaa iskugu imanaya oo khadkii dhexe waa meelaha dagaalka ugu badan ka dhex dhaca kubadda cagta. waa kuma xidigii kuugu dhibka badnaa ee aad garoon soo wada gashaan ee kaa soo horjeeday? wallaahi horta waa su-aal aad u fiican. dee waxaa jira ciyaartooy badan oo wallaahi ciyaartooygii uga dhibka badnaa wuxuu ahaa wasaaradda ganacsiga u ciyaara waxa weeye Jarro. waa tahay haddii lagu yidhaahdo kooxda xanaanada xoolaha Wuxool hal ciyaartooy baa la doonayaa in ay la soo wareegto, halkaa ciyaartooyna go-aankiisa waxaa la siinaya Jimcaale Sooraan oo waa inuu isagu yidhaahdaa ciyaaryahan hebel ayaan kooxda keenaya. keebada odhan lahayd? wallaahi horta waxaan horyaalka wada ciyaarnay ciyaartooy aad u wada xirfad sareysa oo dee maanta haddii la idhahdo waxaas ciyaartooy mid ka dooro in maskaxda waxa laga yaabaa ay kolba mid qaldan ku dhacda. wallaahi waxaan is odhan lahaa ciyaartooygan lagu soo oran lahaa la soo wareejiyo. horta waxaana lagu xantaa waa weerarka, ciyaartooy weerarman ayaan la soo wareegi lahaa. hebel hadda carabo anagii daawadayaasha aan kula aragnay khadiir asluubta. khadiir yare asluubta si fiican. waxaad ka mid tahay ciyaaryahanada fursadda u hela inay mar walba kasoo dhex muuqdaan shaxda tababare maxamed cabdi xasan koofinde. garoonkana mar walba haddii ay xanaanada xooluhu ciyaareyso garoonkaad goobjoog u tahay. waa kuma weeraryahanka ugu wanaagsan ee aad aragtay taariikhdaada kubadda cagta? inta kubadda cagta daawanayay ama soo ciyaarayay labadaba horta wallaahi dee ciyaartooygu waa ciyaartooy ugu khatarsanaa waxa weeye waa coachka hadda ilaaliya maxamed cabdi xasan koofinde. Jimcaale dhinaca kale aynu eegi doonaa. waxaad ka mid tahay shaxda tababare maxamed cabdi xasan koofinde.
waayo aragnimo badan way ku korodhay intii aad xirfadda cagta ku jirtay oo waxaad soo ciyaartay koobkii degmooyinka waxaad nasiib u yeelatay inaad taariikhdaada soo dhisto oo koobkii Serie B-da ee caasimadda Hargeysa aad ciyaarto iminkana waxaad fursad u heshay inaad qayb ka noqoto xidigaha markii ugu horeysay kasoo dhex muuqda horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa yaad isleedahay waa daafac aad ugu kalsoon tahay ee number 5 ah aad isleedahay Jimcaale ahaan ninkaas hadduu halkaa taagan yahay waa lagaga gamaya wallaahi horta waa su'aal aad u fiican ciyaaryahankan kaga gami lahaa halkaas waxa weeye waa ciyaartooyga u ciyaara kooxda gaashaan maxamed oox waad kasoo wada ciyaarteen ilaalada xeebaha iyo BB aan soo BD-na waad kasoo wada ciyaarnay koobkii degmooyinkana waad kasoo wada ciyaartay maxamed oox isagana halkan aynu ka salaamayna dhinaca kale aynu eegi doonaa tababarayaal badan baa kusoo leeliyey haddii maxamed cabdi xasan noqdo hadduu noqdo tababarayaashii isaga ka horeeyey ee Serie B-da iyo degmooyinkii iyo waxoolo laftooda ay iska kala bedeleen tababarayaal badani waa kuma tababarihii ugu wanaagsanaa ee aad ka hoos ciyaartay aad isleedahay khibrad waayo aragnimo iyo go-aanaba waad ka qaadatay horta wallaahi tababarayaal aad u qiimo badan weeye oon halkan ka salaamay dhammaantood oo waxaa ka mid ah Gadraawi macalin maxamed axmed cali maxamed ibraahim iyo Koofinde halkan baan gebigood dhammaantood ka wada salaamaya haddaan dee doorto mid ka mid a doorto inkastay su-aal adagtay wallaahi dee hadda waxaan dooran lahaa Koofinde oo hadda aan wala joogo waxaad leedahay macalinka ugu dambeeya ugu dambaysiinaya ayaan hadda waqti fiican wada sameynaya waa tahay Jimcaale dhinaca kale inagoo marba dhinac ka eegi doonaa hayaankaaga nololeed ee kubadda cagta iyo asxaabtaada gaarka xirfadaada gaarka saaxiibadaad garoonka wada timaadaan waxaa jira goolhayayaal badan oo Hargeysa Stadium kasoo dhex muuqda 10 kooxood ee heerka koobaad ee dalka waa keemka gooladaha ugu wanaagsan ee horyaalka kasoo dhex muuqda wallaahi horyaalka gooladaha adiga aragtidaada aniga waxa weeyaan waa goolhayaha marna kabtankayga ahaa Shaafici Cabdi Xasan Cabdi Xiis ayaan dooran lahaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyada ayaa markii ugu horeysay Somaliland sanadkan xiriirka kubadda cagta Somaliland ay hirgeliyeen haddii ay heshiiska adiga kooxdaada waxool aad ku wada jirtaan u dhamaado ma ku qorshaysan tahay koox kale oo isleedahay waa mid ka mid riyooyinkaaga marun ka soo dhaxmo wallaahi horta waxool horta waa koox weyn oon hadda ku cusubahay laakiin ismalihi waqtigan ka dhaqaaq laakiin haddaan ka tegi lahaa oon koox tegi lahaa waxaan tegi lahaa qaranka kooxda ciidanka qaranka gaashaan Jimcaale waxaynu kusii shaqeynaa gabagabadii dhinaca baynu ka eegi doonaa noloshaada iyo xirfadahaaga kaleed qabato markaad kubadda cagta ka maqan tahay Jimcaale Sooraan marka aanu xirfadiisa kubadda cagta aanu garoomada kusoo bandhigayn maxaa kaloo jecel yahay inuu qabto wallaahi waxaan jecel inaan qabto inaan exercise jimicsi hadba jimka mar orado aan intaas sameeyo si fiican waa tahay haddii la yidhaahdo Jimcaale Sooraan waxaa laga dhigayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland hal go-aan baa sugaya oo ah inuu magacaabo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland kasoo dhaxlo ciyaartooyada wadanka mid ku noqdo wasiirka ciyaaraha ood ku aaminayso isleedahay halkaa degani waan ku dooranayaa dhinaca kale waxaan ku dooranayaa inuu ciyaaraha jecel yahay yaad ka dhigi lahayd wallaahi waxaan ka dhigi lahaa halkaas ciyaartooygan ka dhigi lahaa waxa weeye Nuur Heersare oo ciyaaraha aad ula socdo oo kuwa caalamka la socdo oo wax walba oo Nuur Heersare ka wada ciyaarno kooxda ilaa wasaaradda xanaanada xoolaha marka saacada laga wada waxaad leedahay marka madaxweyne noqdo wasiirada waa tahay waxaynu soo gaarnay gabagabadii kolley walow aad sanado badan aadan kasoo dhex muuqanin inaad fursad u hesho horyaal la socda haddana waqtigan waa taagan waxaad ka mid tahay ixtigaa ciyaaraya Serie B baad soo ciyaartay degmooyinkii baad soo ciyaartay fursad fiican imika weli waad leedahay mustaqbalka haddii lagu yidhahdo 11 ciyaartooy oo aad garoon soo wada gasheen ama aanay qaar fursadda kuu siinin ood jeclaan lahayd inaad la ciyaarto shax 11 ciyaartooye ku midee yaad ka dhigi lahayd shaxdaada wallaahi waxaan ka dhigi lahaa shaxdaas horta qof walba maanta haddii la shax dooro nin walbaba choicekiisa iyo dooqiisu ciyaari lahaa maanta wallaahi waxaan anugu shaxda ka dhigi lahaa goladaha Shaafici Baasha Tugana
waxaan ka dhigi lahaa cabdikhaalid xuseen, 4-kana maxamed doox, 5-kana xamse saxardi, 3-gana cabdisamed laayax, 6-kana waxaan ka dhigi lahaa cismaan fidaal, 8-ka iyo 10-kana waxaan ka dhigi lahaa xamse fabrigas oo 8-ka iyo 10-ka ayaa la gooda. weerarkana waxaan ka dhigi lahaa 9-ka oo khadiir mustafa iyo labada weerarka oo khadiir cristiano 7 iyo 11 oo khadiir yaraa. qadir yara waa tahay 11 ciyaartooy oo aad kooxo badan ka kala keentay oo dadka qaar nin walba wuxuu keenaa intuu kaaga ciyaaray aad waxa tiri hal laga wada dhex muuqdo waa tahay gabagabadii baynu soo gaadhnay halka waxa ka daawanaya taageerayaashii kooxda Wuxool, taageerayaashii degmada Axmed Dhagax iyo taageerayaashii kooxda Ilaalada Xeebaha. gabagabadii halkan maxaad ka leedahay? gabagabadii halkan waxaan ka leeyahay wallaahi aad baan dhammaantood wada salaamayaa, inkastoo muuqayga iyo magacayga garanaysaa, dhammaantood aad baan salaamayaa. waxaan leeyahay iyo True Cable oo ah dhalinyarada aad u horumaraysa oo ka shaqeysa horumarkooda, mar hadday tahay fiidiyoo iyo qurux badan, hadday tahay sawirro, hadday tahay warbixinooyin, aad baan salaamayaa dhammaantood. waa tahay aad baad mahadsantahay. waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii kulanka laacibka oo uu toddobaadkanina marti inoogu ahaa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha ee Wuxool, Jimcaale Sooraan. aad baan kaaga macnaa waqtiga qaaliga Jimcaale, aad baad mahadsantahay. waa tahay daawadayaal intaynu barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaynu kaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.